Assalaamu calaykum. Dunidan waxaa soo maray shakhsiyaad hal iyo habeen ugu shaqayn jiray dalkooda iyo dadkoodaba si ay uga difaacaan cadowga duulaanka ku ah dadkooda iyo diintoodaba. Waxaana ka mid ahaa dadkaas oo aan ka soo qaadanaynaa ninkii ugu weynaa uguna sarreeyay dhanka duulaanka, waana Najmudiin Xasan, laakiin ku caanbaxay magaca Xasan Arramaax. Xasan waxa uu ahaa hogaamiye, sidoo kalena waxa uu ahaa nin aad u caqli badan, waxaana uu horumar weyn ka gaaray samaynta iyo alifaadda hubka nukliyeerka. Inkastoo dadku uu ka dhashay oo Carabta ahaa aad u xaqireen malaha taasi waxay u sameeyeen Carabtu xaasidnimo iyo cuqdad Xasan, balse waxaa nasiib wanaag ah in wadamada reer galbeedku ay xuseen Xasan Arramaax waa ninkii ugu horreeyay oo sameeya waxa loo yaqaano gantaal. Xasan waa ninkii sababta u ahaa inay Carabtu ka guulaysato reer galbeedka, waana ninkii ka yaabiyay ciidamadii Mongooliyaanka ahaa. Xasan Arramaax haddana waxa uu ahaa qoraa buugaagta, balse waxa ugu caansanaa buugaagtiisa buuggu kaga hadlay noocyada hubka iyo waxyaabaha qarxa. Xasan Arramaax waxa uu alifay gantaal awood u leh inuu burburiyo maraakiibta iyo doomaha badda maraya. Xasan Arramaax waana ninkii ugu horreeyay ee sameeya bamba-gacmeedka loo adeegsado iyo baarashuudka loo adeegsado waxyaabaha qarxa. Xasan Arramaax waa ninkii ugu horreeyay oo sameeya bambada dadka ka ilmeysiisa, haddana loo yaqaano gaaska dadka ka ilmeysiiya. Xasan Arramaax waxa uu ku dhashay dalka Suuriya. Xasan Arramaax waxa uu noolaa xilligii Mamaaligta, waxaana uu noolaa qarnigii 13aad ee miilaadiga. Waxa uu geeriyooday sanadku markuu ahaa 1294 miilaadiga. Assalaamu calaykum. Ilaahay waxaan ka baryayaa in Islaamka sidiisa uu kor u qaado.